السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان سلام يا ولي قالي شكرا channel كيغا مانديق بيست كوكين and beauty ما شاء الله سنقو وناكسن ومر لباد كسو دوادا يمر صدحابا channel كيغا مانديق بيست كوكين and beauty وإذا كان مشغولة ايانتان وحان ربايا يعني اللو داغو سرير وناكسن وتمها تساقطك iyo siibsiibka ka saaraysa iyo mushaakilaadka waxaanu haysanaa hadii Allah subhanahu wa ta'ala uu qadaro shay walba wuxuu ka koobayaa laga sameeyaa halkan waxa yaala madiimadan ama dhaladan saad aragtaan iyo manqacadan waxaynu wax ku qasan lahayn halkan waxa yaala العسل الطبيعي ملك شفدا ملك ودو وحاكلو هلكن يالا دوحه geela يدير ما شاء الله شيء كستبا وان فراي wada arki doontaan hadii la qadaro halkan maxay oo yaala alaabteen waxa ka koobnaanaysaa 4 shay halkan waxay noo taala nasha abasoo taqaani nasha maxay tahay dad badan ayaan nashada aqoon ama si aan fahmayn cornflower waxa weeyaan warango af Soomaali warango waa la marsadaa jirka waa la marsadaa inta waa laga sameystaa ma sha Allah كريميدا ولا جهر جريا أو شيء ده وحنا كلا وباناي بيهان ركينا قصن وحير بنخبي بسنة وعارف دونتان على طول إن شاء الله بسم الله على بركة الله وبلابنا استيب الله سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى هدي الله قدره ولا لا عصبة كنا كصبيرة مرة والبحن لي كسر هذا ما عندك بس كوكنا بيوتي كعمة فران يا قلبي فران يا ولا لا يتشعل يا ولا هي قالية من كسي جوكتان مركز تبا قرب كي كاشن كيغا هذه هذا ما سنتين كفايديسة قف كستو أو دونية إنه هلو مركز تبا جوكو برودكتيغا مانديق وان وهلي إن شاء الله بإذن الله سليدي مانديق وده لسان هاير باك فيس باك وهذا لسان بونا مارو دوحة جيلة iyo dir marka insha Allah ka faa'iideyso haboon qof kasta wuxuu la soo xiriiri karaa numberkayga insha Allah ta'ala oo ah 063 447 8571 ama se numberkayga gulista ah oo ah 090 788 3511 إن شاء الله تعالى بإذن الله وإذا كان لصعد إن شاء الله بون وينو ديارنا يا وتكفى إيدي دونتان إن شاء الله مشاكل بدلنا تنت هذا واقع بحي دونتا هدي الله قدر ووحر بلا ونكسن إن شاء الله للسعد ونكسن هدي الله سبحانه وتعالى وقدره اوكي هنقول شو بنينا نشابي ورنقبي بسم الله لباب مقعدات او ورنقاب شويه هلكن دول يسامركا إن شاء الله ويلبا كوشوان كرتا أو جيدان وحنكو درايا سوباقي وكا سوباقو وهذا جيدان ما شاء الله
soo sidiisana waa marsan kartaa ya malqacad bar baan ku darsanayaa anu wiigii 3 jeer baad marsanaysaa ama 4 jeer maasha allah isbedel fara badan ayaa tintaada ka dareemi doontaan haddii allah subxaanahu wa tacaala uu qadaro waxaan ku darayaa 2 malqacadood oo malabka anigu waan isticmaalaa maasha allah 2 malqacadood malabaan ku darayaa qof kasta waxaan leeyahay ka faa'iideyso rag iyo dumar insha allahu tacaala oo jeedaan isbedel baad biidni illaahi alwaaxid alaxad dareemaysaa haddii alla qadaro oo jeedaan intaas ayaan isku qasayaa si wanaagsan ayaan maartay isu dhexgelinayaa insha allahu tacaala haddii alla qadaro wax kastaba waxa u wanaagsan shayga herbalka haddii alla qadaro walaalihii waxay la jahwareersan yihiin timihii jirkii qof kastana waxa weeyaan inuu timihiisa uu ka shaqeeyo daryeel siiyo aad bay muhiim u tahay una habboonta si fiican baad isu dhexgelinaysaa oo qasaysaa malabkii nashaadii ama konflowerkii ama warangadii markasaa u taqaanid iyo malabkii subagii oo ah subagii kala badane dhuuxa geela dhuuxa walaalo badan baa xidhanayaan dhuuxa geelu waa urbu keenaya kan waa mid laga shaqeeyay oo maasha allah caraftiisa waa yaabe haddii alla qadaro 2 saac baad tintaada ku haynaysaa marso markii aad maxaan sheegaaye 2 saac joogtana iska dhaq insha allah waxaan ku dhibcinayaa biyo insha allah haddii alla qadaro صدح malqacdood biyo baan ku dhibcinay waxaa la rabaa shaygii inuu galo timihii inuu gala loo baahan yahay labadan waxay saaranayaan wadifan baa ku jiro duuxaaba meesha ku jira way isdhexgelaysaa si fiican bay isu dhexgelaysaa malabka milmaya warangada milmaysa maasha allah intaas saas ugu qabanaysaa ha iska biyabiyeen insha allah tintuna marba intay leegta ayay ku xiran tahay tintaada hadday tin badan tahay waxaad samaynaysaa warangada kordhiso suuga kordhiso malabka waxbaa kordhisan labadaada maqacdo malabka ku dayso ma fahanteen dee waad u jeedaan waa arkaaba ilmeen qof kastooba ka faa'iideyso inamadaa marsan karaa hablaha marsan karaa hablaha yarba loo marin karaa marwooyinka marsan karaa inamadaa loo marin karaa maasha allah عادي معها انت مثلا هذا مركز تبكسو في العلم برودكت الماندير 1 waxaan aad u mahadsantihiin insha Allah waxaan ku daal doonaa inaan maaragtay wax badan oo herbal isticmaalo iyadoo ay maaragtay ka daryeelayno oo ka cararayno timeena dhib ka daryeelayno iyo jirkeena aynu kana cararayno waxyaalaha maaragtay chemicalka ah aynu u laabayno wixii faa'iido iyo dareero ku jirto
hadda dacabta oo kale anigu guriga waa taala waa tan agteeda taala tomato iyada geeda maasha Allah soo jeedaan waa inaad waxyaalaha isla ogaataa heerbalka ah dacabtaasna maartay samaysanayana wixii soo gelin doona insha Allah waan samaysta ilmahan marsada ama isticmaalo maasha Allah stebiska aan isticmaalno wala wadaagi doonaa hermandeeq insha Allah wala qaaliga waxaan leeyahay subscribe channel ka insha Allah si aad mar walba ula socotaan waxyaalaha aan soo gelino oo uga faa'iideysataan hadii Allah subhanahu wa ta'ala uu qadaro maanta programkeena intaas ayuu ku yahay waxyaalaha inuu samaysanayna waxyaalo easy ah laakiin se aan walaaluhu ayna garanayn soo ma jeedaan afarta shay kan waa dhooxi waa biyo aan 3 malqacad ku daray 2 malqacadood oo malabka shifaaga ah iyo kan flower oo 2 malqacadood intaas aan raba marba adigu waa sida ma garanaysaa aad u doonaysa ku xidhanta tintada dadbanta waa badsanaysaa xabad badsanaysaa warangada inta kale ma badinaysa kan 2 malqacad ku dayso kan 2 malqacad ku dayso oo malabka ay 4 malqacad soo maaha biyahana waxaan ka dhigtaa 4 malqacadood warangadana waxaan ka dhigtaa 4 malqacadood maasha Allah 2 saac intaada ku hay tasaaqudka daadashada toxobta waxaan ku mushaakilaadka madaxa xitaa wuxuu ku noqonayaa qabow relax badreemisa dhibka iyo kuleelka kaabaya marka waxa sameeysan rag iyo dumar insha Allah isticmaalo faa'iido badan badkeedaysa insha Allah ta'ala بإذن الله الواحد الأحد خير بدن إيه برارة إيه برواقة إيه رجينا قولوا عن أصحابته إذا قال أمير كسادون الدفع إذا كتشوفتان أفضل بابا ليش تشوف الله كبركيه لما وحن عادي عاد السلام يا ولا ليه مركز تبي قرب تاجن إنما يهبلا ما شاء الله كان شوق مسوق قارين هذا إذا قرب يقاشان السنين هذا أول ما هسنتيهين بالكسوة تشوفتان إن شاء الله قولوا عن بعيد رجينا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.